ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu maanta waxaanu joognaa waa qolojeed oo aynu dareemi karno xaaladda say tahay kolley waxaanu ka koobnayn tiim dhakhaatiir ah oo isugu jira dhakhaatiir iyo nursing iyo midwives oo ka socda jaamacadda Hon International kolley waxay qayb ka tahay gargaarka caafimaad iyo baahiyaadka kala duwan ee jira waxaan dareennay in inta badan dadku ay awoodda saarayeen cuntada iyo waxyaabaha kale ee inta badan gargaarka ay saarayeen waxaan dareennay ka jaamacad ahaan in qaybihii caafimaadku uu yahay qayb inta badan aan awoodda la saarin dadkuna baahi xooga u qabaan saad ka dareemi kartaan hadda kulli gudoomiyayna waa nala joogaa annagu maanta markaa qaybta ka jaamacad ahaan jaamacadda Hon waxaan maanta u joognaa halkan sidii aan uga qayb qaadan lahayn adeega caafimaad iyo baahida caafimaad ee maanta maxaa halkan ka jirta waxaan dareemi karnaa dadku markay cuntada qaataan inkastoo baahiyo fara badan oo ka horreyn lahaa ay jiraan maanta qaybtaan ka qayb qaadanno waa qaybtaasi waana dareemi karnaa baahiyaha kala duwan ee jira kulligna waa kaamka barakacayaasha degmada Quljeed aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa qaybta caafimaadka ee jaamacadda Hon
oo gargaar u fidinaysa walaalahooda tabaalaysan aad iyo aad baan taagi mahad celinayna waxaad indhiina ku arkaysaa inayna ku filayn oo kuyuga loogu jiro dadku caafimaadkii oo bishacas tiim bay soo dirtay seef tiim bay soo dirtay qaybahaas labada qaybood horeba way yimaadeen qaybtiina aad iyo aad baan ugu mahad celinayna inaad ka qayb qaadataan caafimaadka dadka tabaalaysan ee kaamkan jooga baahiyaha halkan ka jira aad u fara badan yihiin waxa jira maanta awal seef baa soo dhaamin jirtay biyaha oo booyad bay soo diri jirtay halkan booyadii shalay bay ka tagtay marka biyo la'aan baa maanta baahida ugu weyn maanta taala waa biyo la'aan الرحمن الرحيم أنا waxaan maxay madaxa caafimaadka degmadan Quljeed sida gudoomiyaha ay ugu soo sheegay kulay baahi caafimaad ba jirta baahida caafimaadkuna waa daruuri waa mid mar walba taagan dadkuna markay abaara ay yimaadaan way la soo diristaa mar walba dadka inay timaado ay nafaqo timaado ay dadkuna ay moogtahay ay aad u taag daran yihiin kulay dadkan soo barakacay ay ka yimi xoolo inay ka soo dhamaadeen ee xeebaha ka soo orday waxay u baahan yihiin dib u dejin iyo kuwa deegaanka qaar naga talaabiyo si waxay way jiraan qaar wali joogaana way jiraan waxaan halkan maanta uga mahad celinaynaa adeega caafimaad ee ay nagu soo taageertay Hon International College kuwaas oo keenay maanta dhakhaatiir ay maanta halkan dadka waxay u baahan yihiin baahiyaadkooda u sheega anaguna kulley toole halkan ka seefjil daran ahaan waxaan anigoo ku hadlaya seefjil daran team bay seefjil daran halkan soo dhigtay joogtaa oo u hoyda Quljeed oo ka raway bishacasna mid la mid ah ayay keentay kulley maalmo ayuu joogay oo ka qaatay qaybtiisii maanta waxa intaas haddana sii dheer baahidii biyaha oo aanay maanta halkan ay u baahan yihiin aad biyo ugu baahan yihiin kulley teamka maanta noo yimidayna adeeg ay noo fulinayeen way ku mahadsan waan ugu mahadsan anigoo ku hadlaya jaamacadda oo magaceeda maanta ku yimid anigu waxaan ka tirsanahay wasaaradda caafimaadka waxaan kaloo ka tirsanahay WHO waa qolada talaalkii afka la idinku dhibcinayay ee boolyada idin waday talaalkaas oo la idin siinay maadaama dhul aan talaal kuba gaadhin dadka qaarkii ay ka yimaadeen si aan outbreak uga dhicin ayaa talaalka dadka horta loo siinayay oo loogu keenay ta kale maanta waxaan meeshan ku imid magaca jaamacadda Hon oo ardayd ka ahay waxaan isku soo guubaabinay oo anagu isku soo canaananay oo magaca jaamacadda Hon in dadka maanta dhibaataysan ee abaartu keentay in ka soo dhakhaatiir badan ay yimaadeen maanta anaguna nimid anagoo u wadna dhakhaatiirtii ardaydii intaba isku jirnaa si aan u siino ilaahay waa wax baahi tira ana wixii dhibaataysan aan dawadoodii siino dawadina aan wadnaa waana la eegayaa ta kale deeqda ilaahay baa haya waxa abaarahay nagu ridayay wax waan baryadii ilaahay baan ka tagnay waxaynu leenahay hay'adii deeqda bixinayay aaway biyaha inoo keenaane hay'adii deeqda bixinayay aaway abaar in cuntaayna siiyaan ilaahan noqono ilaahay baa wax baahi tira ilaahay baa deeq bixiya waxaynu nagu waaninayaa dhammaanteenba inaan ilaahay horta barino deeq ilaahay baa haya bilaadan ma hayo dadkeenu inta badan waxay ku baabeen waa deeqii dhalagsanaa deeqayaasha ay u leeyahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu raxmadna siiyo roob khayr qabayna siiyo caafimaadkeena ayna siiyo dadka maanta halkaan waxaan ugu nimid maanaanu wadin raashin maanaanu wadin wax kale waxaan u wadnay waa dawo iyo caafimaadkooda oo baadhno ilaahayna hana ku garab galo maanta halkaan waxa ka muuqata dhibaato biyo la'aan booyad baa joogtaa la yiri dadku weel ay biyo ku shubtaan ma haystaan harraad bay baqtiisan yihiin aad waxay u baqtiisay harraad haddana inuu ku dheedo ogaan lahayn xitaa waxaan soo qaadi lahayn biyo oo ognahay in biyo la'aan ka jirto ee waxaan moodaynaa in biyo yaalaan marka waxaan leenahay inta naga dambaysa ama soo socota meeman doonti inay biyaha horta ka xaqabtaan noloshu waa biyo in biyaha loogu horeysiyo wax la siiyo caafimaadkuna uu ku xiga marka biyo la caafimaadna waa la helay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa sida awalba loogu guntaday in loogu guntado dadka dhibaataysan dadku Ethiopia wuu leeyahay Soomaaliland wuu leeyahay labadaba way isku dhex jiraan dadka imika qaarka meeshan ku haray ee u baahan wax celiye way jiraan awrtii way ka baqteen
raaradoodiiba halkaa taalla raashinkeena la siiba yaalla dameel ay ku karsadaan iyo guri ay harsaan midna ma haysta waa bannaan waxay yaallaan marka wax in loo sameeyo ama hooy ay galaan ama la celiyo labada xaalad bannaan inaan isku taxallujino ummadeena Soomaaliland ilaahay waa ka isu keenayay ayaan dadka ku boorinay inta naga maqan inaan dadka ama hooy u sameeyno ama meeshii ay jecel yihiin ka yimaadeen lagu celiyo raashinkooda yar iyo hooygoogana loo qaado hooy magacayga waa Mustafa Muumin كون الماء يرسويه الماء يروح حنوصلها أي صفي قدعي أي نقص كبدي أي أبي والله أي وقف عيش مشوكتوها مسيا والله مسيا عشان مركا وقف عولها صدق معلومة قف عيش أي واي مسيتشيل وين لا بلاد أي hooyadani waxay wadatay saddex ciyaal aba waxay ka cabanayeen waxa weeyaan qufac joogto ah oo muddo 3 cisho ah qaarkoodna ay 7 cisho ay leeyihiin sidoo kalena waxa weeyaan waxay leeyihiin xumad ilmaha ugu yar waxa weeyaan imanka fariisu shaqo badan bay leeyihiin tan kale sidoo kale iyadana aad bay u shaqaynayaan feedhaheegu marka aan ka cabirnay maxaan ku dhahaa xumadna way leeyihiin taasoo markaasi inay markaa ciyaalkan ay leeyihiin safiir Libonia waxaan u siinay daweyn markaa waxaan haynay markaa waxaan rajaynayaa insha Allah taala ilaahay ku caafiyo oo nala garab joogo insha Allah taala dadkeena weeyaan oo dadkii abaaruhu markaasi ay keeneen waxaan u baahanyihiin gurmad badan oo joogto ah kaliya maalin iyo laba waxba uma qabanayso anaguna dadaalkeena insha Allah taala waan ku garab joogaynaa waxaan soo baranayna insha Allah waan ku soo celinayna waan mahadsanyihiin dadka deegaankana sidoo kale iyo madaxdana aad bay soo dhaweeyeen xageeda inta ka timid marka ma ilmaha u timid mise waxa u timid abaaraha iyo ilmaha hore ay marka xanuunkan ilmaha qoormo ka qabto dareentay xanuun waxaan dareemay toddobaad bal way qabtay xanuun short carruur shubay iga dhacay shubay ugu fudud marka la fakarac ku dhacayna markaa طبعا فقراء أقول على حمد بدي شباب imse ciyaar marka xumada kaaga dhacday waxay ka dhacday 4